injineer daawud abiib axmed oo ka mid ah xisbiga talada somalilan haya ee kulmiye oo maanta tv-ga qaranka somalilan uu kula kulmay degmo dalxiiseedka arabsiyo ayaa fariin u diray mucaaridka somalilan. geesta kale waxa uu ka hadlay dowladda taagta daran ee ka arrimisa villa Soomaaliya oo uu ku tilmaamay iyadoo 1 kiiloomitir aan ka talin inay isku qaaday si indhala-aan arrimaha Somalilan. waa sida uu hadalka u dhigay injineer daawud abiib axmed oo ka mid ah xisbiga talada somalilan haya ee kulmiye ayaa waxa ka mid ah hadaladiisii. alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismillaahi raxmaani raxiim. hadda waxaan joognaa degmada wax soo saarka. waxaan u nimid dhalashadii nabigeena suuban calayhi salaatu wasalaam. waan ka soo qayb galnay alxamdulillaah, waayo dhalashada nabigeenu waa muhiim sallallahu alayhi wasallam. inta haddaan ka yar faa'iidaysto wax yaroo kale oo kolley waa adduunya la joogaa, adduunyaduna way hawlo badan tahay. marka haddaan in yar ka faa'iidaysto waxaan odhan lahaa oon hadda halkan ku salaamayaa saaxiibkay suxufi xuseen oon isku aragnay halkan. saaxiibbo horna aanu ahayn baan hadda halkan isku aragnay. suxufi waa kan hawlihii waa kuwan aad dhawaan dee waxaa bilaabmi doontaa kaambeynkii, waxaa ku xigi doonta codayntii. sidaad og tahay baa madaxweynaha qaranka somalilan wuxuu bariya galbeedba ku soo maray socdaalkaasi uu ku hurgelayo xaaladaha dalka, wixii qabsoomay waxaan qabsoomin uu ku mahadsan yahay. waxa xigta shalay toole waxaa la qaatay kaarashii baa la qaatay, maxay ahayd shahaadooyinkii baa la qaatay. wixii intaa ku xigaana waa garoonkii dee oo nin walba wuxuu soo shaqaystay buu garoonka la tegayaa. kii cay soo shaqaystay cay fara badan soo buuxsaday garoonka wuxuu la yimaadun buu la iman. kii wax qabad soo qabtay iyo wuxuu bulshadiisa maxay ahayd soo hantay qulubta shacbigiisuna garoonka wuxuunbuu la iman doonaa. waxa weeye somalilan maanta caruur maaha. somalilan maanta waxa weeye waa dal gaboobay weeye, doorashooyin fara badan soo maray weeye, kala garanaya ka wax u qabanaya kan wax u qabanaynin. marka laga tago sheekada miidiyaha ee had iyo jeer taagan, hadday dumar tahay, hadday rag tahay, wax tiktok la yidhaa, wax facebook la yidhaa, wax caynkaas lagu tilmaamay hadda aad moodaba inuu caalamkii wareeriyey oo kii hadlaaba ama qofkii qofacaaba maxay ahayd wax iska soo duubayo. si walba ha ahaatee maanta waxaan leenahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan wuxuu u baahan yahay garab istaag, waayo waan soo tijaabinay dalka. sidaad og tihiinba waxaa ku soo dhacay hawlo fara badan, warmo fara badan baa ku soo dhacay oo aad u fara badan. warmihii faraha badnaa wuu isku wada dhigay, kamuu gambar xataa warmahaas wuu isku wada dhigay, wuu iska wada qabtay. dalkiina wuxuu maanta u jahaystay waxa weeye waxay dadku jecel yihiin. dadku waxay jecel yihiin waxa weeye waa horumarka maanta iyo badhaadhaha maanta aan ku jirro. way jiraan dhaliilooyin, laakiin waxaan jirin macaaridkii sheegi lahaa dhaliisha dawladdu ay leedahay ama toosintii dawladdu ay leedahay toosin lahaa baan jirin, oo ku mashquulay hebel waa nin xun, wasiirka kale waa nin xun, madaxweynaha waa caynkaas. waxaa loo baahan yahay wax iib gala, waxaa loo baahan yahay mucaarad wax iibin kara oo dadka wax u sheegi kara. laakiin mucaarad looma baahnaa 7 sannadoodba soo qayliyey, 7 sannadoodba maxay ahayd qolboqol intuu caruur yar ku xaraysay ree hebel, halkana waa ree hebel, halkan kalena waa ree hebel. haddaba waayo xisbi baad doonaysaa inaad dhisatee, xisbigaagu ma xisbi ree hebel baa ma madaxweyne ree hebel buu noqonayaa? maxaad u jeedaa? taa macnaheedu waxaan isla karaa mararka qaarkood waxayba u buuxinayaan oo ama maxay ahayd markhaati ay uga dhigayaan inay madaxweynaha iyagu ay leeyihiin waanu nacabnahay, inay dadkiiba jeclaysiinayaan oo dadkiiba jeclaanayaan oo ay arkayaan. marka waxa weeye haddaa xalay beenta haddaad ku celceliso oo beenta aad ku celceliso qaar baa run moodaya. waxaan uga socdaa maanta madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan arrimihii dibadda waa waadax. dalal badan oo aan ina aqoonin baa ina bartay, magaceennii baa meel walba maray, horumarkeennii iyo aqoonsigeennii baa miis walba yaalla. faalid soomaaliya itaaliya waxay tidhaahdaa dalka soomaaliyeed, maxayga soomaaliyeed, midnimada soomaaliyeed. waxaan leenahay waxaasi wax lagu qoslo weeye.
maxaad Soomaaliyeyn waxaad haysataa ama aad joogtaa only 3 kilometer 3 kilometer baanu codkaagu dhaafin 3 kilometer baanu xukunkaagu dhaafin dalal kale oo adduunyada ku yaalana waxaad leedahay aniga xukuma adduunyada kaad ka dhaadhicisa caynkaas ama dalka aad ka dhaadhicisa tira halka anaa xukuma waa dal gabay dadkiisii iyo dalkiisiiba waayo hadduu garan kari waaye inay yihiin labadan laba wadan oo midna yahay midka xalaasha maxay tahay xornimada haysta midna uu yahay ka 3 saacadood maxay tahay bishii ama labadii biloodba meel qiiqo iska taagayo ee qarxaysa ee ololaysa waxaas wax la iib gali kariya ma waxaan u sheegayaa dawladaha jaarka iyaga qaar hinaaseen hinaaso waxa weeyaan rag buu ku wanaagsan yahay waxa dumar buu ku wanaagsan yahay laakiin ragga kuma wanaagsana waxa ka fiican inaad tira war maxay inoo dana waxa soo socdeed ka hinaastay inaad tiraahdo war balbeertan jeeshka halkan aniga waxay ka sii halka kalena waxay ka sii ilaa dad wada dhasho wada joogaynu nahay laakiin haddaad tiraahdo yuu qadaynin yay talaaba bilaamin yaan la aqoonsanin what you are zero batadna runta marka la isku sheego waxaan u sheegayaa oon hambalyeynaya oo wanaagsan madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Cagjar iyo suldaanka guud ee Koomade waxa weeyaan halkaana suldaan buu yahay halkaana suldaan buu yahay wuxuu ugu yahay wadad Soomaaliyeed laakiin isma yaqaanaan kuwa xagga jooga isma yaqaanaan cidii dan igu jirto ama meel wada joogtun baa isku dana ha waa Ethiopian ha waxa laga yaabaa maxay tahay Soomaaliland kala badh hatta anigu in Ethiopian ahay taa macnaheedu waxa weeye halkana waan ku qaraxsanahay halkana waan ku qaraxsanahay halkana dadkayga baa jooga halkana dadkayga baa jooga Muuse Xuseen Xasan warbaahinta qaranka Somaliland degmada dalxiiseedka Arabsiyo ee gobolka Gabiley.